qaybtaasay marka soo gooyeen kadibna way faafiyeen iyagoo markaa ka dhigaya sheekhi wuxuu baneeyey gabadhan mehersanin in lala seexan karo ay xalaal tahay sidaasay marka dadka ugu dhigeen laakiin dadka qaarkood baa waxay isaga khaldami kartaa waana sida dhacday wuxuu u qaadan karaa doonida ay u doonan tahay macnaheeda inay u mehersan tahay fahm khaldan baa sidaas u geli kara بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عملنا خالصا لوجهك توفيق الله ينوافجيو تاريخ ذو ولباتني صدح ذا بش السقالات لوضكم لباتني شن وهبين أي 4 سوق ليسو waxaan doonaya inaan baraarujiyo shalay iyo maanta iyo arrin aada su-aasheedii igu soo noqnoqotay oo social mediaha dadku ay ku wadaagayeen anigana aada laisoo weydiiyey sheekh gabadha aabaheed hadduu isiiyo nikaax la-aan ma la seexan karaa hadday uur ii yeelatase ilmahaas xukunkiisu muxuu yahay ayaan rabaa insha allahu tacaala inaan caddeeyo si dad fara badan oo ku fitnoobhaya ama xadgudub ku geysanaya ama diintooda dhaawac iyo aakhiradooda dhaawac soo gaadhayo ay uga badbaadaan masaladaasi waxa weeye su-aalihii aan ka jawaabi jiray oo jumcada iyo khamiista bil walba u horeeya ayaa waxaa laigu weydiiyey su-aal gabadha haddii aabaheed uu bixiyo ninka ay u doonan tahay weli intaan loo meherinin maxaa uga bannaan ma u bannaan tahay mise uma bannaana haddiise uu u galmoodo oo ilmo meeshaasi uur galo ilmahaasi ma ilmo sharciya mise waa waladu zina oo waa ilmo zina ku dhashay su-aashaas saasay ahayd kadibna waan ka jawaabay labada qaybood ay leedahaba waan ka jawaabay qayb waxa weeye maxaa ninkaasi gabadhu u doonan tahay weli loo meherin uga bannaan waan ka jawaabay kadibna waxaan ka jawaabay ilmaha uur galay oo intuu khaldamay oo mooday dooniddu inay meher tahay oo qaabkaasi markaa ugu galmooday isagoo moodaya inay xalaal u tahay haddii ilmo sidaa ku uurgalaan ilmahaasi xukumkuu qaadanayo ma ilmo sharciya oo nasabka qaadanaya mise waa garac ayadan waan ka jawaabay marka qolyahan waayahan khariban inta badan ujeedooyinka leh ee social media hadallada gogooya ayaa hadalkii kala jaray waxay soo gooyeen qeybta ka hadlaysay ilmaha haweeneydii haddii uu u doonanayd oo weli loo meherinin ninku hadduu barakeeyo ama uu maaragtay la seexdo isagoo moodaya inay xalaal u tahay ilmaha sidaa ku uurgalay waa ilmo xalaal oo sharci ah qeybtaasay marka soo gooyeen kadibna way faafiyeen iyagoo markaa ka dhigaya sheekhii wuxuu baneeyey gabadhan mehersanin in lala seexan karo ay xalaal tahay sidaasay marka dadka ugu dhigeen waxaan doonaya marka masaladaasi inaan wax isdul taago horta su-aasha ay kala gooyeen hadalkay kala gooyeen oo su-aashii oo dhammaystiran iyo jawaabtii labadeedii qaybood oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaan barnaamijkii su-aalaha xalaqada ama fadhiga 26aad 429 su-aasha nambarkeedu yahay halkaasay ku jirtaa oo su-aalihii lay weydiinaya khamiista iyo jumcada masalada haddaan marka iyadoo dhammaystiran oo saa u dhammaystiran oo su-aashay kala gooyeen oo dhammaystiran insha allah waa laydiin soo gelin doonaa laakiin haddaan wax yar sii caddeeyo masaladu waxa weeye marna waxaa laga hadlayaa haweeneydan aan mehersanayn ee doonan ma bannaan tahay mise ma bannaano inuu xaas ka dhigto inuu jidhkeeda taabto inuu la cidloobo la khalwoodo marna waxaa laga hadlayaa haddii khalad dhaco oo isku khaldamaan iyagoo ismoodaya inay xalaal isu yihiin haddii ilmo uur galo
ilmaha xukunkiisa laga hadlaya midda hore waxa la isku waafaqsan yahay oo shaki ku jirin nin walbana garanaya caamiya culimada taqaana hadday gabadhu doonan tahay inay naag ajnabiya tahay oo ayna ninkaasi aynan xalaal u ahayn oo uusan u galmoon karin oo jirkeeda taaban karin oo uusan la khalwoon karaynin ilaa meherku dhaco loo guuriyo taasi waa caasho garatay way ruux kastoo muslima garanaya laakiin dadka qaarkood baa waxay isaga khaldami kartaa waana sida dhacday wuxuu u qaadan karaa doonida ay u doonan tahay macnaheeda inay u mehersan tahay fahm khaldan baa sidaas u geli kara wayna dhacday oo wayba noo timid ba iyagoo loo galmooday oo sidaa isku reeraysteen oo moodahaya inay xaaskiisii tahay wayba noo timid ba masalada iyadoo noocaas marka fahamkaasaa dhici kara fahm khaldan oo inuu moodo inay xalaal u tahay oo saa ugu galmoodo hadday taasi dhacdo marka oo ilmo uur galo ficilkii ma banaana inkastoo shaaficiyadu leedihiin waa banaantayna lama dhihi karo ma banaana lama dhihi karayo khilaaf baa ku jira madhabka shaaficiga xukunka ficilka laakiin ilmaha uur galay oo sidaa ku uur galay ma ilmo sharciya oo ninkaasi aabba miyuu u noqonaya oo nasabkiisa ma qaadanaya mise ilmuhu waa garac masaladaasina masalada labaad oo iyadana waxaan kaga jawaabay in ilmuhu uu nasabka qaadanayo ilmo sharciya uu yahay sidaana waxaa qaba culimada qaba jumhuur ahlilcilmi baa qaba fuqahada 3-4 madhabood baa qaba waxaa laga soo reebaa oo masaladaa diiday nin ka mid a fuqahada xanaabilada oo la yidhaahdo yani alqaadi abu yacla laakiin fuqahada intooda kale waxay qabaan ilmahaas inuu abtirka qaadanayo ilmo sharciyana yahay saas daraaddeed baa kutubta shaaficiyada yani waxa weye masaladu way ka buuxdaa watu shubha la dhahaa yani haweeney si ismoodsiisa loogu galmooday sidaana ku uur qaaday haddaan matalan madhabka shaaficiga naqli yar ka soo guuriyo wuxuu leeyahay matalan imaam alxaramayn fi nihaayat almatlab wuxuu ku leeyahay walastu acrifu khilaafan annahu yatacallaqu bihi alnasab walcidda yani waxa weeyaan khilaaf ma ogi buu leeyahay masaladaasi galmada haweeney aan u mehersaneyn ninku uu galmoodo oo uu xaaskiisiina moodayo la tahay inay u bannaan tahay inuu u galmoodo arrinkaa inay ka dhalanayso haweeneydaasi inay ciddo tirsanayso marka labaadna ilmaha nasabkiisa inuu aabbaha haleelayo wax khilaafa ma ogi buu leeyahay imaam alxaramayn fi nihaayat almatlab sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah isaguna wuxuu leeyahay wujuubu almahri waalciddati waannasabi laysa min khasaa'is alcaqdi asaxiix yani waxa weeyaan meher way leedahay maadaama loo galmooday si khalad baa loogu galmoodee ismootiisa loogu galmooday meher inay leedahay ciddana tirsanayso nasabkuna uu midka u galmooday nasabku haleelayo ilmihii uu isagu yeelanayo arrinkaasi ka mid ma caqdiga saxiixa ama guurka saxda ah khaas kuma aha bal wuxuu yidhi fa inamaa yahbutu fii wad'i shubha galmo ku timid ismoosiis oo ninku uu mooday inay xaaskiisii tahay ayadana way ka dhalanaysaa nasabku inuu haleelo inay haweeneydu ciddo tirsato meher yeelato xadkii haddii la xadi lahaana way ka kor noqonaysaa sidoo kale oo macnaheedu waxa weeyaan ninku ismoodsiis hadduu haweeneyda ugu galmoodo zaani weye la dhihi maayo la xadi maayo yani ismoodsiiska iyo malahaas iyo dhannigaas ayaa xadka ka kor yeelaya oo waa shubho ilmihiina nasab buu u samaynaya iyadiina way ciddo tirsan meherna way leedaho dee waa loo galmooday marka masaladaasi waa masalo yani uusan culimadu haalibkooda ay qabaan shaaficiyaduna waxay u yaqaanaan shubhada 3 qaybood bay ka dhigaan shubhat lmuxal iyo shubhat lfaacil aw ilficli bay dhahaan iyo shubhat ljiha shubhatu ariiqna waa la dhahaa marka taa dhexda ku jirta waytaan hadda ka hadlayno masaladaas masale marka sidaa u taalo cid kasta oo fiqiga wax ka akhrisatay ama ha noqoto fiqiga madhabiga shaaficiga oo kale ama ha noqoto fiqu lmadaahibka fiqu ikhtilaafka iyo madaahibta kale masalada waa masale ay garanaysa waay watu shubha la dhahaa saas daraaddeed baa waxaan kala mid dhigay ninka mooday gabadha u doonan inay xaaskiisii taho sidaa ugu galmooday ilmaha xukunkiisa waxaan kala mid dhigay sidii nin haweeney aan tiisii ahayn mooday xaaskiisii oo iyaduna u galmooday oo kale waxaa la midoo kale meher arkaantiisii qaar ka mida ka maqan tahay oo nikaaxa faasidka la yidhaahdaa haddii isugu galmoodaan isagoo moodaya inay xalaal isu yihiin
masalada marar kalena waan ka hadlay macna wax weeye malaha ah ama xalaal ku too shariicadu ku xalaaleysay isagoo saamooday galmada oo ugu galmooday ayaa ilmaha nasab siinaya oo abtir siinay maxay la shariicadu waxay aad ugu dadaashaa ilmaha intii nasab loo heli karo sabab daciif ah ha ahaatee in nasab loo raadiyo oo garac laga dhigin wax yar hadii loo heli karo in intaasi abtir iyo nasab loogu sameeyo dhanka kale shariicadu waxay aad uga dagaalantaa ilmaha in abtir la'aan la dhigo oo ilmaha kaliya marba haduu xarig ku dhasho ama uu ismoodsiisba ku dhashaba yuusan xarig saxaba noqonin shariicadu waxay diidaysaa ilmahaasi nasabka aabihi looma diidi karo mana inkiri karayo ilaa hal xaalo mooyaan oo xaalada ah inuu licaan sameeyo licaanka waxa la yiraahdaa in maxkamad tago oo 5 dhaarood maro inuusan ilmihiisi ahayn halka mar kaliya ilmuhu nasab waayi kara wasaas daradeed ba yani waxa alwaladul firaash qiyaafada ayuu ku sugnaanaya nasabku halkaas marka masalada salka ku haysaa su'aashaasi marka la soo gooyay oo sida khaladka ay yani u faafiyeen qoliyahan muqradiinta ee danaha khaaska leh ayadoo faahfaahsan waa la idin soo dhigay su'aashii lafteedii ay soo gooyeen oo qaybtay jareen la socotaan insha Allah taala waa la idin soo dhigi intanina faahfaahin baan ugu talgalay masalada inaan si faahfaahiyo xagee kutubta kaga taala culimada tiri ilaan taa hore waan duuduubay oo su'aasha hore markan ka jawaabay si duudoon baan uga jawaabay hadda laakiin fuqahada iyo madaahibta iyo sida ay kala yihiin iyo faahfaahintaas aan ugu talagalay insha Allah taala inaan ku daro ujeedaduna waxa way dad fara badan oo la fidnaynayo oo aakhiradooda la seejinayo oo dambi la gelinayo oo comment bixinayo oo caytamahayo oo la kharibahayo oo waxaas inay iska ilaaliyaan waxaan waliba dhihi lahaa waayaan dam wad ogtiin fitanka socdo balaayo aafaysan baa jira dad muxuu ahay hungurigu ka galay dad muxuu ahay cadaawadi hayso kuwa iska dagaalamaya kuwa shaydaan wato kuwa balaayo gaala wadato kuwa dane kala wato warkii aadamaha saa loo jarjarhayayo markaas dadkii lagu fidnaynaya waxaan leeyahay marka arinta iyada aad la isaga ilaaliyo hana la taxadaro diinteena aanu taxadarno akhradeena aanu taxadarno ruuxays ilaaliyo yani waxa way waxaad qaadanayso iyo waxa aad muxuu ahay aad aaminayso iyo waxa la sheegayo iyo aad looga fiirsado waqti fidna la jooga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh